السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان المسلمين تميلوا البضع عالم كتشوتان هي حالة البضسوانتين. أنت عاف أنت حرنسان الله عافية. أنت عقود حيث الله كقاضي. أنت أكيد ما أنت وحكي سوقنا هاي مجال قلافة وكتر سنقبل كشبيلة هل كان ومساجد النور أو لقد سهايو مجال ومساجد كي أبد وجوينا اللي جه الجلية قلافة. المساجد كان ضد مسلمين وحوي وناكسن با وسحل قامي qorshayaashiisa iyo dhismihiisa min bilow ilaa dhamaadna u taagnaa waqtigoodii iyo maalkoodii iyo maskaxdoodina ku bixiyay injineerkii dhisay culimadii ka qayb qaadatay iyo shacabka magaalada Qallaafa oo ay mahadsan yihiin meel fiican bayna wax keeneen inta kadib dadka muslimiinta ah ee caalamka ku nool halkan aan ku noolahay ma jiro bangi islaami ah oo dadka muslimiinta garab siinhayo ma jirto shirkad dadka muslimiinta leeyihiin masaajidada u dhisto waxa kaliya masaajid aynu ku dhisano waa in xoogeena aqligeena iyo maskaxdeena aynu midayno kadibna baytullah aan ku hirgelino qof kasta oo maanta dhagax meeshan uu ka galo qof kasta oo maanta $1 meeshan ka galo qof kasta oo maanta $1 ka gala meeshan maalinta qiyaamo uu helayaa isagoo oo $1 iyo $2 iyo dhagaxii ka awood badan ka khayr badan ka laba jibaar buu helayaa haddaba dadka muslimiinta ah meel walba caalamka joogno wax yar oo fudud oo adiga waxba ku yeelaynin yaa waxa laga yaabaa maalinta qiyaamo in uu ku noqdo xarig furash in lagu furto maalinta qiyaamo laga yaabaa haddaba masaajidkan inaynu dhisno inaynu hagaajino bilow ilaa dhamaad cidda uu sugayay kaliya waa dadka muslimiinta dadka reer Qallaafa iyo dadkii reer Qallaafa qurbaha jiray iyo dadka kale muslimiinta ee Soomaaliyeed marka masaajidkan dhismihiisa iyo qorshihiisa cid kale ma sugayo innaga oo kala sugaya innaguna dawlad islaami ah oo leenahay masaajid oo dhisaysa ma jiro cidda kaliya la sugaya waa innaga haddaba qof walba oo muslima gaar ahaan dadka xanuunsan kuwa waalid iyo shacabka leh si carruurtooda Ilaahay ugu wanaajiyo si xanuunada Ilaahay uga qaado si kuwa reer galbeedka jooga waxa weeye dhibaatada Ilaahay faraj ugu furo masaajidkan hal laga soo qayb qaato xaq badan baa ku baxaayo waqti badan baa galaayo dad baa u soo dhiiday dad baa u rafaaday dad baa waqtigooda ku bixiyay masaajidkan cid kale ma sugayo inaguna sugaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh